magaca xiriir waxa bixiyay Sheekh Maxamed Muumin oo maxaan ku raadaan sheekh caalima oo dadka deegaanka ka baran jireen kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Caynab TV oo hadahan oo kaleetii markaasi daawataan barnaamijka caweyska caawa waxa marti inoogu injineer Maxamed Mursal Xaashi oo badankiin ay ku garanayaan hindisaha ama gudoomiyihii mashruuci xiriir khadka telefoonka ee wadanka UK ayuu si toos ah ugu jira injineer ku soo dhawow barnaamijka caweyska Caynab TV aad baad u mahadsantahay waa dhawahay waana kaaga mahadcelinayaa aad baad u mahadsantahay waa gartay su'aasha ugu horeysa oo aan barnaamijkeena ama wareysigeena caawa ku bilaabayno waxa uu yahay waa kuma Maxamed Mursal Xaashi aad baad u mahadsantahay walaal marka ugu horeysa Allah Azza wa Jalla ayaan u mahadcelinayaa marka labaadna waa idin mahadcelinayaa bahdina Caynab TV iyo shaqaalaha iyo dhamaantiinba waa idin mahadcelinayaa wicitaanka aad soo wacdeen oo aad wareysigan aad ila yeelateen aad baan idinka mahadcelinayaa Maxamed Mursal hadii aan warbixin kaasiyo horta marka ugu horeysa waxaan ka imid markaan Goldow imaanayay wadanka Ingiriiska ase ahaatee markii aan wadanka imid khubaro badan ayaa la tashaday oo marka qorshahaygu wuxuu ahaa markii aan jaamacadda ka qalin jabiyay in aan maxaan ku raadayay wadanka Ingiriiska aan xilal ka qabto ase ahaatee khubarada ayaa igula taliyay inaan Galdogob tago oo maxaan ku raadayay bulshada u koorgala xaaladeeda iyo degmada iyo shacabka markii aan u koorgalay ka bacdina waxaan sameeyay arrimo fara badan oo mashaariic oo maxaan ku raadayay horumar oo maxaan ku raadayay basiga oo loogu talagalay bulshada hankeeda kor inaan u soo qaado sida daraadeed markii hore waxaan ka baxay Technical Institute of Somalia bariisamaadkii kabacdina maxaan ku raadayay wadanka Ingiriiska baan muddo ka shaqeynayay siiba qaybaha dhismaha iyo arrimaha bulshada aan maaragtay waxyaabo badan ka soo qayb qaatay wadanka Ingiriiska oo taasoo community-ga maaragtay aan u shaqeynayay oo waxyaabo badan aan u soo qabtay waliba xaafad dhan ayaan maxaan ku raadayay waxaan ka ahaa maxaan ku raadayay community leader kabacdi markii aan Goldow imid si kasta ha ahaatee markii Puntland la sameeyay oo 1998 dadkii ka qayb qaatayna kamid baan ahaa oo hormuudka ahaa oo runtii matalayay beesha tanade dhalinyaradii markaasi abaabuleysay in Puntland laga dhigo maamul goboleed kabacdi markii aan Goldow imid waxaan sameeyay markaan xaaladda u koorgalay oo aan arkay degmada in habacsanaan badan ay ka jirto ayaan waxaan dhisay mashaariic badan si dadka hankooda aan kor u soo qaado waa gartay su'aasha labaad baynu u gudbaynaa hadaynu ku nimaano background-ka ama taariikhdaas kooban waxa jira injineer mashaariic fara badan oo aad alifaadooda qayb aad lahayd mashruucyadaasi badanka waa ay guuleysteen xagee marka mashruucyadaas hadda ay marayaan mashruucyadaas waxay marayeen markii ugu horeysay waxaan ka bilaabay xafiis baan furay aan ugu talagalay in magaalada maaragtay rubbish project la yiraahdo si qashinka looga nadiifiyo waqtigaas habacsanaan badan baa jirtay magaalada maxaan ku raadayay maamulka aad iyo aad buu u liitay kabacdi waa lagu guuleystay muddo dhowr bilood ayaan waday oo 6 bilood oo kala magaalada dhan classic baan ka dhigay haweenka iyo shacabka iyo dhalinyarada iyo dhamaan way taageereen ma sha Allah guuriga gobonimo waarta kabacdi mashruuca uu guuleystay oo group ayuu maaragtay ku wareejinayay oo ilaa hadda way shaqeeyaan waxa ku xigay wadooyinka oo magaalada dhexdeeda aan wadada laamiga aan bilaabay oo markaasi boqolaal kaari meelaha biyo degeenka aan maaragtay ku shubay oo ugu talagalay bulshada hankooda in kor loo soo qaado si ay laami u gaaraan kabacdi hay'ad baa timid oo laamiga dhistay ma sha Allah guuriga gobonimo waarta mashaariic badan baan sameeyay waxa kamid ah haamaha falaxalka ilaa 300 oo haamood ayaan ka sameeyay magaalada Goldow oo dadku maaragtay maqaayadaha biibitooyinka ay markaas u isticmaalaan taasoo ay isticmaali jireen maxaan ku raadayay arrimo kale oo maaragtay beri hore la isticmaali jiray taasoo dadku markaas ay ka faa'iideysteen waxa kamid ah miisaska khudaarta caanaha hilibka ay dadku saartaan oo iyadana aan maaragtay miisas badan gacanteeda ugu sameeyay waxa kamid ah dhiraynta runtii oo aan gaarsiiyay Bursaalax tuulo bashka
maxaan ku rahday xere jaalle bursaalax maxaan ku rahday riig oomane galdugob ilaa dhowr kun oo geed ayaan ku beeray maasha Allah guul iyo gobonimo kabacdi dadku halka ay ka sii wadeen oo waad aragtay magaalada dhirta ku beeran runtii ilaa 3000 tree ayaan maxaan ku rahday gaarsiiyey kabacdi intii soo hadhayna waxaan gaarsiiyey meesha la yiraahdo Balisofe ilaa Dhudub ilaa Galaadi oo markaas tabaruc aan ilaa 500 oo geed u qaybiyey marka guulo waaweyn ayaan meesha aan ka rabay oo ah inay dadku ay isku tiirsanaadaan oo wax qabsadaan oo horumarka ka shaqeeyaan waxa kamid ah masaajidkii ugu horeeyay oo dabaqa oo magaalada laga dhiso aan design gareeyay oo design-kiisa anigu aan lahaa oo markaa bulshadu ay dhistay arrimaha aad u fara badan maaragtay oo mashaariic ayaan ka hirgeliyay gobdo dhamaanna waa ay guuleysteen runtii dhaqaalaha ku baxayna aniga ayaa jeebkayga badi ka bixin jiray 85% xataa mashaariicda aan hirgeliyay Puntland baa ka faa'iideystay oo maaragtay gobolada bari Boosaaso Nugaal Qardho way ka faa'iideysteen oo wasiirada way iga qaadan jireen ma garad waa gartay horumaradaas kala duwan ee aad ka soo sheekaysay engineer waxa kaloo jiray in degmada ay horumar kale ay ku tilaabsanaysay hadii ay noqoto dhanka sportska waxa jiray marka in degmadu ay ku guuleysatay koobkii degmooyinka gobolka Mudug oo aynu ognahay sida aynu la wada soconno in markii ugu horeysay ay Galdugob ku guuleysatay marka maxaad kolba waa daawanaysay oo waa la socotay inta uu koobkaasi socday maxaad marka fariin u diraysaa dhalinyarada soo hoysay guusha weyn aad baad u mahadsantahay inaan ku bilaabo ayay ahayd aad baad u mahadsantahay mashruuca maxaan ku rahday sportiga ama kooxda sportiga degmada Galdugob waa u hambalyeynaya waa generationkii labaad oo ciyaaraya markii aan runtii mid wadanka biraha garoonka ka taagan baan u taagay markii hore ma aysan ahaan jirin runta marka laga hadlo inta badan markaan u taagay dhalinyarada aad bay maaragtay hormuud u ahayn xagga sportiga 2007 2006 2008 2009 waad ogtahay madaxweynayaasha Puntland markii Galdugob yimaadaan garoonkaas ay booqdaan shirarka waaweyn marka lagu qabanyo barnaamijyada garoonkaas ay tagaan marka ciidda la tukanayo garoonkaas la tagaa macnaheedu biraha waxaan uga taagayay in bulshadu ay ilbaxdo markii hore meel waxay qashinka lagu guro oo maxaan ku raad dadku ay careless ka ahaayeen sida daraadeed hindisaygu wuxuu ahaa hindisa weyn oo ugu talagalay bulshada inaan si wadaniyada iyo hogaamin iyo leadership ahaan inaan ugu shaqeeyo oo waqtigayga iyo dhaqaalahayga iyo timekayga aan ku bixiyo si aan xagga rabbina ajir u helo ayaguna marka hankooda kor aan ugu soo qaado runtii wax qabado iga hor imaan jiray ma jirin mashaariicdii aan ka hirgelin jiray Galdugob dhammaan way hirgaleen waxaa kamid ah wadada Bandiirada iyo Galdugob oo aan furay oo aan tagay oo maxaan ku raadayay si nabadgelyada halkaas looga shaqeeyo waa 2008 baan ka hadlayaa waxaan tagay Garowe Gaalkacyo meesha Qardho Boosaaso oo intaas dadkaan ka dhaadhicinayay aan tusado iyaga kale in degmada Galdugob maxaan ku raadayay ay horumar ku tallaabsanayso sida daraadeed hadda waxaad moodaa kooxda sportigu inay maaragtay guulo waaweyn keeneen oo magacii iyo sharaftii iyo karaamadii magaalada ay soo celiyeen oo taas ay ku ciyaareen gobolka Mudug magaala madaxda ee Gaalkacyo aad baan ugu hambalyeeyay runtii waa generationkii labaad weeye well done waa gartay waxa jira inta badan marka engineer Maxamed Mursal Xaashi la maqlo waxa la soo xasuusanayaa gobolka Xiriir marka waxaan rabnaa inaan hal su'aal ka weydiino qorshaha Xiriir asalkiisa iyo halka uu ka soo bilowday aad baad u mahadsantahay horta gobolka Xiriir magaca Xiriir haddii aan kaaga warbixiyo waa magac qadiimi ah oo runtii ka soo jeeda taariikh aad u fog kabacdi maadaama wadanka dalka Soomaaliya aan wax soo bartay qofku markuu wax barto waa inuu research sameeyaa ayaan sameeyay maxaan ku rahay magaca ugu haboon oo loo bixin karo Galdugob maaragtay caasimad ahaan maadaama degmada Galdugob tahay markii hore Bursaalax iyo Saaxo ayaa hoos imaan jiray hadda saddex degmo siman bay noqdeen magaca Xiriir haddii aan kaaga warramo waa baliyada xiriireed oo safan ilaa Gaalkacyo ilaa Galdugob okay Xiriir marka magaca Xiriir waxa bixiyay Sheekh Maxamed Muumin oo ah maxaan ku raahdaa sheekh caalima oo dadka deegaanku ay wax ka baran jireen sida dadka gobolka Mudug dadka maxaan ku raahdaa Galmudug degan ay wax ka baran
jireen waqtiyadii hore baliyada xiriireed ayuu diinta ku bari jiray sidaa darteed researchkii aan sameeyey ayaa waxaan gartay in magac xiriir uu yahay magac classiga oo ay qaadan karaan marka laan ma raaci karto sababtu waxay tahay laan Puntland baa wadata ama Jubaland baa wadata marka laan waa erey Ingiriis marka caasimada xiriir oo kale waa la oran karaa hadafkaygu wuxuu ahaa inay gobol gaaraan laakiin hadda waqti badan baa ka dhiman sida ii muuqata waqtigaas 2007kii way okay bay ahayd inay gobol helaan laakiin hadda degmooyinkii waa siman yihiin maadaama degmooyinkii siman yihiin waqti bay qaadanaysaa waa in cod yimaada waa in bulshooyinku isku taageeraan waa in shacabku markaa isku ogolaadaan marka 15 sano ayaan hadafkan soo waday uma talagelin runtii ma ahayn bakhaar aan leeyahay ama guri aan leeyahay ama shirkad aan leeyahay waxaan ugu talagalay bulshadu inay aqoontayda ay ka faa'iideystaan waa gartay ugu dambeyn marka fariinta aad u dirayso bulshada reer Galdogob oo aad kula dardaarmayso maxay tahay bulshada reer Galdogob waxaan leeyahay runtii shacab aad u wanaagsan baa jooga boqolkiiba 95 oo aad u wanaagsan oo aad u sharaf badan oo runtii horumarka jecel oo culimo leh oo ganacsato leh oo maxaan ku raadayay dhalinyaro leh oo dumar leh baa jooga magaalada sidaa daraadeed waxaan rajaynayaa inay ammaanka ka shaqeeyaan inay maxaan ku raadayay bahda caafimaadka taageeraan bahda waxbarashada taageeraan bahda isboortiga taageeraan horumarka waa in la hiigsadaa adduunka oo dhan hadda qalaasa ka jira siiba Soomaaliya waa ogtihiin meel walba waxa ka jirta dhibaatooyin sida daraadeed dekada garacad waa la furay ma sha Allah guuliyo gobolnimo waarta sida daraadeed waa inay ka faa'iideystaan oo jiilka cusub oo hadda sida kooxda isboortiga oo koobka soo qaaday oo kale waa in dhalinyarada maxaan ku raadayay ilbixiya oo maxaan ku raadayay qabyaalada iyo maxaan ku raadayay kala taga waa in laga fogaada waa in bulshadeenu ay noqoto bulsho la jaan qaada maxaan ku raadayay deegaanada ay horumarku ka socdaan ama nabadgelyadu ay ka jirto macnaheedu ma ahan hadii meel ay dhibaato ka jirto in annagana ku biiro waayo dad ilbaxa oo aqoon-yahanaa baanahay runtii waxaan oran karaa boqolkiiba 95 dad aad u wanaagsan weey oo ma sha Allah isoo dhaweyn jiray oo 100 shir baan ka qayb galay 100 shir oo aan u sharixi jiray in Galdogob gobol noqoto mashaariicda runtii dadka shacabka way igu taageeri jireen laakiin boqolkiiba 95 dhaqaalaha aniga bixin jiray hoteelaan u seexan jiray diyaaradaha soo qaadan jiray sanad kasta ogow waxaan inta kuugu darayaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo Soomaaliya madaxweyne ka noqday dhowr sano iga horeeyay bolotechnically uu ka baxay baan ka baxay marka hadii aan dadku aysan libintiisu oo kala ama horumarka ama sharafta ama karaamada waxa weeye looma soconayo marka shacabka Puntland runtii shacab sharaf leh bay ahaayeen oo magaalooyinkan ku sheego dhaw igu soo dhaweyn jireen madaxdooda madaxweynayaashooda ma sha Allah maxaan ku raadayay taariikhda Galdogob aad bay u badan tahay inkastoo rajaynaya inaan taariikh badan idin soo bandhigi doono hadii la yiraahdo aad baa mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa injineer Maxamed Mursal Xaashi oo khadka telefoonka ee wadanka UK si toos ugu jiray waxaana uu martiin ugu ahaa barnaamijka caawiska ee aad ka dhageysataan warbaahinta Caynab TV intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waa dhamaantii idin la sidaasiyo nabadgelyo